Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo meel fagaara ah kula hadlayay bulshada magaalada Cadaado ayaa sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in la dhameystiro hay'adaha dowladeed ee maamulka Galmudug. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu Cadaado u yimid inuu la kulmo waxgaradka iyo maamulka ugu sarreeya ee Galmudug, ayaa cadeeyay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay ama ay bixinayso in si buuxda loo taageero dadka reer Galmudug oo iyagu leh go'aanka ugu dambeeya ee lagu gaarayo ama laga gaarayo mustaqbalka iyo aayaha maamulka Galmudug oo ay doonayaan in ay iyagu dhistaan. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay in dowladda ay gacan ka geysanayso qabashada doorashada Galmudug oo xor iyo xalaal ah, taasoo dhabaha u xareysa ka shaqeynta danaha iyo mustaqbalka reer Galmudug. dhalinyaro iyo waayeel iyo odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo halkan isugu timid, ciidan iyo siyaasiyiin, kulligiin reer Cadaado haddaad tihiin, iyadoo ay tahay maalintii 26 Juun, aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran. waxaa lay baray murti hadda ka hor tiri reer Cadaado taariikh iyo tagta waxay u leeyihiin inay tala ku nool yihiin. marka waxaan leeyahay reer tala ku noolow tub dheer waxaan u soo maray inaan tashanno kow dhaha, wada tashanno laba dhaha, isla talinno 3 dhaha, tawfiiq gaarna 4 dhaha, isku tashanno keligeen 5 dhaha. reer tala ku noolow tub dheer waxaan u soo maray tala loo dhan yahay iyo inaan taagno tiir adag, turxaan bixinno tabashada, Galmudug taam ah dhisno, uu taageero dhammaan shacabka reer Galmudug. mowqifka dowladda federaalka ee ku aadan Galmudug waxa uu yahay sida madaxweyne xaaf uu sheegay marar badan in la dhammaystiro dhammaan hay'adaha dawliga ah ee dowlad goboleedka Galmudug, in la dhammaystiro Galmudug, reer Galmudug oo dhan ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. laakiin si loo dhammaystiro ma ahan dowladda federaalka cidda dhammaystiraysa, waa reer Galmudug, waa idinka. annagu idinkaan idinla shaqaynaynaa, ma aha inaad idinku annaga nala shaqaynaysaan, sababtoo ah Galmudug waa idinka, ma ahan annaga. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo muddo dhowr maalmood ah ku sugan deegaanada maamulka Galmudug ayaa waxa uu xalay kulamo gooni ah la yeeshay madaxda maamulka Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne xaaf iyo waliba odayaasha dhaqanka, wuxuuna muhiimadda ugu weyn ee kulamadan ay ahaayeen sidii ay u dhici lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah, taasoo ay u dhan yihiin shacabka reer Galmudug.